magacaygu waa Maxamed Sheekh Axmed Khaliif Cumar maxaan barfuun waxaa ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Muqdisho jaamacada ku yaala gaar ahaan jaamacada Zamzam waxaan ahay arday barta kulliyadda beeraha sanadkiisa afraad oo daba aqoon yahay muddada xirfadan baranayay waxay iskugu jirtaa runtii waxaa soo bilaabay dugsigeygii sare ka soo bilaabay barashada dugsiga sare beeraha ka soo baxay ilaa 4 sano jaamacada markii la isku daro waxaa ahay arday ku dhex jira 7 sano filligan beeraha waqtiyadan dambana ka shaqeynaayo oo runtii kamid ah dadka aadka ugu dhex jira oo ka shaqeeya sanadkiisa afraad jaamacadan oo gowgow yahay runtii caqabadaha aad ay u badan yihiin waana kala duwan yihiin runtii fi ay majaal markii la dhaho sektorka beeraha caqabado kala duwan oo aad u badan ka jiro wadanka guud ahaan caqabado badan haysto beeraleyda caqabado kala haysto ka arday ahaan ardayda baranaysa kulliyadda caqabadooda aad u badan yihiin runtii hal ilaa lagu soo koobi karo laakiin waxa ugu badan haysto waxay tahay facilitation fiican inaan u heli karin maxalla xirfadan ama skillkan runtii aqoonta waa heli karaa laakiin beeraha waxay u baahan yihiin gacan ka qabasho iyo skill in gacan lagu daro marka jaamacadaha wadankana waxa isleeyahay yani access uma heli karaan in yani inay keenaan ama ay helaan wixii ardaydaas ay u baahnaan lahaayeen laakiin ardayda caqabada ugu badan haysta waxaa facilitationka iyo in waxa la dhaho gacan ka qabashada ama practicada ee ku yartahay maadaama cilmigan science uu yahay oo loo baahan yahay in gacanta laga qabto marka caqabadaha way badan yihiin laakiin ardayda wax baranaysa ee sektorka baranaysa caqabada ugu badan haysato taas aan dhigi karaa laakiin caqabadaha ugu badan waxaa waa yani inaan heli karin anaga yani ama shakhsiyan aniga aan wixii markaas de oo loo baahnaa tusaale anaga waxaa hadda ku shaqeynaa teknolojiyadda loo greenhouse-ka wuxuu u baahan yahay facilitation badan howlo badan oo wuxuu u baahan yahay oo yani gaara asaga marka imaata dhismihiisa iyo marka imaata ka shaqeyntiisa marka wadanka oo yani arintaas yani ay u fududeen ama laga heli karin shakhsiyan aniga ahaan yani waxaas dhigi karaa caqabada ugu badan waxaa waa in yani facilitationka uu aad u yar yahay ama waxyaabaha la heli karo oo loo baahan yahay inay aad u yar yihiin sababta aan u doortay kulliyadda beeraha waxaa waaye waxaa ka soo bilaabay horta dugsigeygii sare markii 8aad ka soo dhameeyay laba option ay banaaneed iskuulka dhiganayay Anatolia Educational Central la waxa uu ahaa iskuul laba qayb ah dugsiga sare markii la imaado oo iskugu jiro dhinac beeraha iyo dhinac muxuu ahaa normal secondary-ga ah marka anaga xilligaas waxa yani doorana waxay ahayd ama waalidka iyo dadkii markaas anaga naga because waqtigaas yani ma aqoonin ama si fiican ma fahansaneen wax la dhaho filliga beeraha saas uma fahansaneen soo marka waqtigaas soo bilaabatay in maxalla soo bilaawno kadib markii iskuulka oo soo dhamaaday waxa fahanay marka muhiimadda ay leedahay kulliyadda beeraha soo markii jaamacadda imaaday option waa bedeli karay oo meel kale waa ka dhigi karay laakiin waxaa dareemay muhiimadda ay leedahay beeraha oo u leedahay wadanka iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed marka waxa ku doortay waxay tahay manfaacada guud ee u leedahay wadanka iyo mid gaarba oo runtii qofka ay muhiim u tahay in kulliyadda ama cilmiga beeraha ba shakhsiyan oo yani wax badan ka faa'iido karo asoonan dad kale iyo wax kale aan wax wala qaban muhiimadda ugu badan horta qofka loo baahan waxay tahay marka uu rabo in sektorka beeraha ama filli walba aado dhinac oo rabo inuu soo galo horta waxa muhiim ah marka horeysa ka go'naasho qofkan in horta diyaar u yahay waxaan inay asaga ka go'an tahay yani iska soo tijaabada ka tahay waqti iyo qarash kaaga dhamay runtii wax macna leh kuma soo kordhayaan also beeraha waxay isku jiraan wax la dhaho yani science and practical so waxaan yani marka beer waa iska naqaana qofka waxa loo baahan yahay in yaambadiisa uu qaato ciidaas madow ama caradaas oo dhaxda ka galo oo qoraxda ku dhacdo oo yani waa sektorkaas adag oo maxalla yani u baahan dadaalka iyo juhdiga badan marka waxa loo baahan yahay qofka dhinaca soo galaya marka in yani waxaas oo dhan uu diyaar u soo noqdo oo soo tabaabashaysto maxalla asagoo ay ka go'an tahay in waxaas dhinacan oo maxalla u soo jeesto